Soomaaliya markan ma waxay isku diyaarinaysaa inay weerarto Somaliland oo ciidankan la tababaray maxay yihiin ujeedkooda soo dhaw daawada muuqaalkan like tarsiina share garee halkan ayaan kugu faahfaahin doonaa waxa soo noqnoqday hadallo iyo eedeymo la xiriira in dawladda federaalka Soomaaliya ay kordhinayso diyaar garowgeeda ciidamadeed iyadoo laga yaabo in mustaqbalka cadaadis military lagu saaro Somaliland ama dhulka lagu muransan yahay inay weerar ku qaado laakiin waxa jira xeelado ay horay markaasi mid military oo xasaasi ahayd oo dhinacyadani u dhaxeeyay sida dagaaladii laascaanood iyo khilaafka isii qaatumo waxay sababeen in Somaliland iyo xoogaga deegaanka ay xoojiyaan fariisimahooda iyadoo dawladda Soomaaliya ay 2023 si rasmi ah u aqoonsatay isii qaatuma inay ka mid tahay nidaamka federaalka Soomaaliya khilaafka dhuleedna weli si buuxda looma xalin khilaafka Muqdisho iyo Hargeysa wuxuu markaasi wax weeyaan horay ugu koobnaa dood siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed laakiin hadda waxa ku soo biiray arrimo badan oo istiraatiiji ah waxaa jira talaabooyin labada dhinac isku soo saareen oo saameynaya safarka diblomaasiyadda dowlimaadiyada iyo xiriirka hay'adaha dawladda Soomaaliya waxay shirkadaha diyaaradaha uga digtay inay rakaab u qaadaan Somaliland iyagoo aan haysan fiisaha ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya 26 December 2025 ayaa noqotay maalin bedeshay miisaanka khilaafka ee u dhaxeeya dhinacyadan Israa'iil waxay noqotay wadankii ugu horeysay xubinka ah qaramada midoobay oo si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland Soomaaliya si adag ayay u diiday waxaana sidoo kale cambaarayn ay ka timid dawlado iyo ururo goboleed iyo kuwa caalami ah arintani waxay khilaafka Somaliland iyo Soomaaliya ka dhigtay mid aan ku koobnayn Muqdisho iyo Hargeysa kaliya Somaliland waxay tan iyo 1991 ku doodeysay inay tahay dal madax banaan waxaana muddo dheer u socday olole diblomaasiyadeed oo lagu raadinayo aqoonsi caalami ah aqoonsi dawladeed Somaliland waxay doonaysaa in aqoonsiga Israa'iil uu noqdo bilowga ay dawlado kale ku daydaan xiriir istiraatiiji ah ee Somaliland doonaysaa dekada Berbera iyo Berbera oo markaasi leh xeebta markaasi ka mid ah xeebaha ugu dheer Afrika ayaa Somaliland u ah aalad dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeed oo muujinaysa muhiimadda gobolka waxyaabaha kale ee cabsi gelinaya Soomaaliya Muqdisho waxay aaminsan tahay in aqoonsi dheeraad ah oo Somaliland ay hesho ay wiiqi karto mabda'a midnimada dhuleed ee Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya waxay ka walaacsan tahay in haddii Somaliland ay hesho taageero military iyo saldhigyo shisheeye geeska Afrika uu isku bedeli karo goob loolan cusub oo quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ay ku loolamaan haddaba su'aasha ugu weyn ma ahan oo kaliya Somaliland ma la aqoonsan doonaa su'aashu waxay sidoo kale tahay haddii aqoonsigu sii fido Soomaaliya sidee ay ugu jawaabi doontaa iyadoo xilligani uu Soomaaliya ka arrimo Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo dhaaf ku ah xukunka haddii Muqdisho ay isku daydo inay si military ugu hortagto Somaliland yaa joojin kara dagaalkan cusub dhanka kale Somaliland waxay haysataa guul diblomaasiyadeed oo weyn oo ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil laakiin hal aqoonsi kaligiis ma keenayo aqoonsi caalami ah oo buuxa Soomaaliyana waxay weli haysataa taageero balaaran oo caalami ah iyo mid goboleed oo ku aadan mabda'eeda midnimadeeda dhuleed sidaas darteed geeska Afrika wuxuu wajahayaa xaalad xasaasi ah dagaal cusub lama xaqiijin laakiin khilaafkii hore wuxuu hadda leeyahay dhinacyo caalami ah oo ka badan kuwii hore loo ogaa marka la daawado like saar muuqaalka oo aragtidaada commentiga nagula wadaag mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogto ah madax xanuun laba zaa'ida bogo iyo beerka oo ku olola tabardarro zaa'ida xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba indhuhu ma ku madoobaadaan kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii isbitaalka Fiqi Hospital waxaa kugu diyaaro 24 saaxiigan kugu ah dhakhtar Fiqi oo in ka badan 30 sano taqasus leh caafimaadku waa qaali hadda gaar isbitaalka Fiqi oo kumaan eeb uu ku caafiyay ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda